qarax gaari iyo weerar toos ah ayaa goordhow lagu qaaday hoteelka Elite ee Muqdisho uga yaala xeebta Lido. weerarkan oo gudaha hoteelka ay dabley gashay ayaa ku bilowday qarax gaari oo aad u culus, geerida iyo dhaawaca mas'uuliyiin dad shacab ah ayaan la soo warinayaa. dad ku sugan aaga xeebta Lido ayaa keenan u sheegay in qaraxa oo iridda hore ee hoteelka ka dhacay ay ku dhinteen dad badan, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. intaas kadib in koox hubaysan oo ilaa hadda aan la ogeyn tiradooda ay gudaha hoteelka galeen ayaa la sheegay rasaas ayayna durba bilaabeen, iyadoona ay dagaal kooban la galeen askar goobta ku sugnayd. inta la xaqiijiyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo dad kale ayaa ku dhintay qaraxa iyo weerarka wali socda. sidoo kale dhaawaca dad uu ka mid yahay wasiirka howlaha guud ee Galmudug Axmed Riblaawe ayaa jira. waxaa kale oo la soo warinayaa in dad rayid ah ay gudaha hoteelka ku jiraan, iyadoo la geeyay goobta askar si ay u badbaadiyaan dadka shacabka ah ee hoteelka ku jira weerarkana oo soo afjaraan. wixii ku soo kordha oo warar ah waan idin la wadaagi doonaa.